maxaad la murugoonaysaa? Ma waxaad u haysataa inaanad qurux badnayn? qof baa aad u doonaya inuu sidaada u qurux badnaado. kuwo badan baa lixaadkoogii waayey, haddana qanacsan. ma waxaad rabtaa lacag badan? boqolkiiba 30 dadka adduunku waa sabool. qaar badan waxay ku nool yihiin $1 wax ka yar maalintii. ma waxaad doonaysay oo aad weyday saaxiib? qaar baa xataa aan waalid haysan. ma dhadhanka cuntadaad nacday? carruur ayaa gaajo u dhimanaysa. ma adeegashada dukaamada waaweyn ayaad ku daashay? dad baa qashinka ka dhex raadinaya raashin ay cunaan. moobilkaa jabay miyaad la murugootay? in badan baa mugdi ku nool oo iftiin koronto aan arkin noloshooda. ma noloshaad nacday? bukaan badan oo ay ku xidhan tahay ogsajiinta neefta ayaa cisbitaallada jiifa, wax kastana ku bixinaya si ay u sii noolaadaan. ma shaqo ayaad weyday, mise shaqadii aad haysay ayaad nacday? malaayiin ayaa shaqeeya 12 saacadood si ay u helaan hal waqti wax ay cunaan. ma dadaal kastoo aad samaysay, darajo kastoo aad heshay, ayaad haddana degganaan maskaxeed weyday? nimcadii alla ku siiyey ayaanad ku shukrin. alle ayaa kuugu yeedhaya in aad u noqoto oo camalo wanaagsan aad samayso si alla raalli kaaga noqdo. ma qof aad jeclayd ayaa kaa tegay oo aad la murugoonaysaa? ma ogtahay in 8 bilyan oo qof dunidan ku nooshahay? weyddiiso alle subxaanahu wa tacaala beddel khayr qaba inuu ma kuwa madax noqday, maal iyo magac weyn yeeshay ayaad ka masayrsan tahay amaba aad ka hinaasan? ma ogtahay intooda badan in aysan si nabad ah u seexan, madaxa faaruqin karin, isku buuq darteed iyo cabsi, keligoodna suuqa ma dhex socon karaan? ma qof warkaa sheegay ayaad la gubanaysaa? qaar baa xorriyaddoodii waayey oo xabsiyada dhex jiifa. haddaba ha ku lumin wakhtigaaga tirinta dhibaatada, iyaysan kuu muuqan keliya waxyaabaha aadan haysan. xusuuso oo ku xamdi naq nimcooyinka alle. fadlan la wadaag qof kastoo asxaabtaada ka mid ah, laga yaabee qaar murugaysan in ay ku jiraan.